السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما برشوين الصوماليين ملك سجون تعالى ذلك كجوتان ولكن إبراهيم نور سجال لو تقنن أبوان سجال تشيكي أصحابي ألك النجار سعتان والسماوات فيلمس ما أنت واحد رباها هدو يبيد مو إن أنت هضو برنامج موضوع أنسودي ياري وما أنصاه ما أنصدن وعيكو سعتان رمان دلنيرة الصوماليين ملك سجون تعالى ذلك كجوتان ونشعل هاي إن dhammaantiin hadduu beedmo si fiican idin farxad gelin doonto aadna fahmi doontaan intaan barnaamijka ugu gudagelin fadlan channelka hadda ku cusubtahay subscribe noo saar like share comment hadba si aad ula socotid mowduucyada aan soo gelino ama dhiirgelin ha noqoto ama murtiyo kale ha noqoto aan dhalinyarta ama Soomaalida kale aan ku bogaadinayno si aad ula socotid waxa must ah ama waajib ku ah inaad furatid gambaleelka oo aad si aad ula socotid mowduucyada aan soo gelin doono ku soo dhawaada barnaamijkii iyo maansadii dhulka hooyo waxay leedahay maansadu maansa aad iyo aad u qiiro badan oo dhammaantiin aan jeclahay inay maskaxdiina wax ka bedeli doonto waxay leedahay maansadu dhaliyahay dhambaal baan sida dhugashadiisa yeesha dhowr eray haddaan qeexo oo nidan dhalaalsiiyo dhakafaar intuu idin dilay lumay aqoontiini dhulkii hooyo wuu dhacan yahay dheeman ciidiye dhurwaa baa ku heeso wataas dadku dhammaadeen dhul kastaba dadkiisa dhisto dhaawac ka ilaasho oo horar ku soo dhaadhiciyo cadowga uga dhaartay toos dhufays baan xiraynaa wixii dhagalahow toos dhammaanteen dhaqaaq baan u nahay dhicinta ciideenna cadowgeenna waa keenyo oon caad ku daahnayne ceel waa kuwii shalay ku cunay curadadii beesha uqdad hore ayay noo qabeen masa cadeeyaane cadowgiina inay tahay dad yahow galiya caashiina mar caleen xun bay kaaga gadi cuudkii kuu yaalay marra ciidii hooyay dhahdaa calanka aan taagto marra baddeen nacaanka ayay cagaha saartaaye cuqaashii cirooliyo carruur dumar cilaan saartay kulligeen cagtaan marin rabnaa cadowga Soomaali barnaamijka ayaa laga rabaa inuu hirgeliyo waa dhalinyarta Soomaaliyeed ay daawanaysa meel kasta dunida dacaladeeda ka joogaan waayo farkaliya fool ma dhaqday Soomaaliyeed tirada maansada waxaan diyaariyay kadib markay Kenya shalay badda inuu haysatay oo baddan ay muran gelisay kadibna ay ku xijisay inay dadka shacabka halayso ay ku dhaxlayso Soomaaliya gudaheeda taas waxaa fududeeyay baan dhihi karnaa dadkeena Soomaaliyeed oo noqday qaar la shaqeeya cadowga la safto jaajuus ah iyo qaar la safto dadkii inaga dhaxdeeni waa la isku keenlaynayaa waa dareen kartaan Soomaaliyeed waxa dhammaanteen inaga maqan wax la yiraahdo muwaafaqo Ilaahay subhanahu wa ta'ala muwaafaqo hayna siiyo horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga dhigo dad garta dantooda dad walaalnimada garta adduunka waxa ku wada nool dad aan isku midab ahayn isku abtir ahayn isku diin ahayn ba hal mowqif ku heshiiya balse inagii oo aan maanta Soomaali ah oo walaalo ah oo dad heela oo wiil abtiga wiil adeerkii wiil walaashiisa wax walba dadkii wada connection people dad isku xiran ah ba waxay maanta maraysaa in dhaxdeen cadow ka faa'iideysto wiil geljiraba loo yimaaday dad geljiraba loo yimid waa la qabtay madaxa laga wada toogtay qarkoodna waa la taxaystay wadanku miyaanay dawlad lahayn waad ogtiin wadamada dawladaha leh u fiirso wadamada dawladaha leh waad ogtahay haddii qof muwaadin oo wadankan u dhashay uu wadan kale xabsi ku galo inay dawladdu ka jawaabto leeyahay muwaadin wadanka u dhashay halka loo xidhay imisa Soomaaliya maalin walba xabsiyada ku baabaa oo wadan fog inta la gaarin dariisyada ku baabaa waxa kale fay maxay tahay waa Soomaalinimadeeni baa waxay tahay wax daciif noqotay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaalinimada hana tuso walaalnimada Allah hana tuso dadkana Allah isku soo dumo Allah fahansiiyo cadowgooda ma garanayaan maanta iyaga cadow isku ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadowgooda ha jabiyo cadowga Soomaaliyeed Allah ha jabiyo cadowga Soomaaliyeed Allah ha jabiyo وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي
وسؤال داويني دلك يا إسكالي كان قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي كان ديني هوشتا